waxaan joognaa xilli qofka la yidhaahdo hanti ma haystaa ee aan la odhanin xaggee ayuu ka keenay si la mida tujaarta iyo kuwa hantida haystaana inoo muujiyaan farxad iyo dhoolla caddayn saa'ida si ay inoo ilowsiyaan waayihii kakanaa ee ay ka soo mareen guusha ay gaadheen. haddaba maanta waxaan isla eegaynaa oo dib u milicsan doonaa noloshii dhiiqada iyo uskaga ka soo dhex baxday iyo ciyaartooygii caanka ahaa ee Sadio Mane. noloshii carruurnimo, kubaddii shalabaadka ahayd ee uu ciyaari jiray, cagcadaantii uu kubadda ku dheeli jiray, sababihii guusha uu ku soo gaadhay oo ugu weyneyd islaamnimada uu haysto iyo dadaalkiisii cajiibka ah lama uu heerkan ka soo gaadho. intaa iyo waxyaalo kale ayaan kaga hadli doonaa muuqaalkeena gudihiisa, balse fadlan like garee muuqaalka si uu helo daawasho fara badan kana mid noqo asxaabta qiimaha badan ee Baldacad TV. hadda iyo muuqaalka geesigan maanta qisadeena ku soo qaadanaynaa waa wiil yar oo la yidhaahdo Sadio Mane, kaasoo dhashay 10 Abriil 1992 carruurnimadiisiina ku soo qaatay xaafad yar oo ku taalla waddanka Senegal oo lagu magacaabo Bambali, taasoo ay buux dhaafiyeen guryo yar oo mutulayaal ah, cariisho iyo jiingada iyo waxyaalo la mid ah. Sadio familkiisa aad ayuu tiro badnaa, waxaanay gaadhayeen carruurtoodu ilaa 10 qof oo ku wada nool dhammaantood hal guri, kaasoo aan lahayn leer iyo electricity fiican. sax ahaanna ma uu fiicnayn oo mu lahayn sax wanaagsan. biyaha ay cabayeen waxaa laga soo dhaamin jiray ceel yar oo ku yaalla xaafadii ay deganaayeen ee Bambali. si guud waxay ahayn familkoodu qaar faqiir oo dan yar, waxayna lahaayeen beer yar taasoo ay ku beeri jireen sonkorta iyo bariiska iyo cuntooyin kale oo baaley ah. marka uu helo Janice yar Mane waxa uu soo daba mari jiray dhammaanba shaqadii loo diray. wuxuu ahaa mid aad u jecel ciyaarista kubadda cagta, waxaanu iman jiray oo mar walba soo daba mari jiray si uu u ciyaaro kubad garoon yar oo gurigooda u dhow, kaasoo ku dheeli jiray lana dheeli jiray ciyaalkii xaafadda ee tuuladii Bambali. muu haysanin kaba uu xidho xataa iska daa qaar uu kubad ku ciyaaree, balse wuxuu lahaa hami uu doonayay inuu marun ku gaadho meel sare. mar kasta uu seexanayo Mane waxau ahaa mid eega xidigaha, isagoo leh goorma ayaan guulaysanayaa, goormase ayaan bedeli doonaa noloshayda, waan ka gudbi doonaa waayahanka kan iyo xaaladdan aan ku jiro ee aadka u qadhaan. aabihii iyo hooyadii waxay aaminsanaayeen qof tuuladan u dhashay Bambali inaanu gaadhi karin guul, marna aan ciyaarto noqon karin, islamarkaana dalkiisa iyo waddankiisa aanu awood sare ka yeelan karin, maadaama ay tuulo yar oo tuulo hoosaad ah oo aan wax macno oo weyn u lahayn markaasi waddanka. muddo waxa uu soo ciyaaro kooxo yaryar oo tuuladiisa iyo waddankiisa. maalin ayay burburay fikirkii ahaa in aanu qofna ka soo bixi karin magaalada Bambali iyo tuulada yar, noqon karin ciyaartoo lagu faano adduunka gaadha. kadib markii 2002 World Cup-kii xulka qarankiisu ay gaadheen quarter finaliskii. sidaa darteed xulka dalkiisu waxa uu go'aansaday inuu qiimeeyo Sadio Mane una kaxaysto caasimadda waddanka dalka oo ka kaxeeya tuuladii yareed ee Bambali, maadaama uu ciyaartoo soo korayo aad u firfircoon lehna kubad iyo hibo sare oo aad u qiimo sarreysa. isagoo hooyadii waa ay diidanayd, waayo ma ay haysanin tuulada lacag ay kaga saarto oo ay ku dirta caasimaddii dalka ee markaas. balse ugu dambeyntii way u ogolaatay Sadio inuu aado caasimaddii waddanka ee Senegal. da'diisu waxay ahayd markaa 10 jir oo keliya, waxaana loo soo diray caasimadda dalka Senegal. markii uu tegay caasimaddii waxa uu ku biiray da'yar fara badan oo loo tababarayay dalka iyo ciyaartooyda qaranka si ay u noqdaan marun qaar u qaado koobka adduunka, una muujiyo sharafta iyo karaamada ay leedahay waddanka Senegal. ma aaminsan tahay in Sadio Mane cagacadaan uu ku soo galay garoonka markii ugu horreysay isagoo aan haysanin xataa kubaddu kaba uu ku dheelo? iskabadda kaba uu ku dheelo ee waxaanu haysanin xataa kaba uu ku socdo. waxau ahaa qof dan yar oo ka soo jeeday reer dan yar ah, mana ay jirin qiimeyn kale iyo taxadar kale oo la siinayay. keliya waxa lagu tababarayana waxay ahayd kubad yar oo caaga oo aad u liidata. balse markii uu ciyaarayay uu garoonka ku jiray wax saacad ku dhow, waxaa gebi ahaanba isbedelay fakarkii coachka ee haystay markaa da'yartii loo tababarayay qaranka. markii uu ka yaabay orodkiisa iyo awoodda iyo firfircoonida uu leeyahay Sadio Mane, waxa uu si dhab ah ugu tababaray gruubka dadkii ugu sarreeyay, waxaana loo iibiyey kaba uu ku ciyaaro kubadda oo aad u adag si uu uga soo gudbo wareegyada iyo tababarada uu qaadanayo markaa aad u kakanaa. waxa uu noqday ciyaartoo aad u firfircoon, gebi ahaana waxa muujiyay awooddiisii uu ka lahaa garoonka gudihiisa. da'yartii uu meesha ugu tegay walow ay ahayn rag ka wadaad adagoo awood badan, daahana ka wada weyn isagu maadaama uu ahaa 10 jir oo keliya. haddana wuxuu noqday mid si dhab uga soo dhex muuqda oo ka soo muuqda garoonkana si weyn looga taageero. dadka daawanaya iyo taageerayaasha iyo dadka daawanaya da'yarka tababarkooduna ay la dhacaan qaabka uu ciyaarayo ay ka helaan. Sadio Mane waxaa waqtigaas ka soo daba dirtay lacag yar hooyadii si uu ugu sii wato waayihiisa nololeed uguna iibsado cunto iyo wax uu ku noolaado,
maadaama aan aad loo qiimeyn jirin daayartii waqtiga dalka u soo baxaysay ee Senegal. Sadio Mane 7 sano markii uu ka dheelayay akademiyadii dalka ee ciyaartooyda yaryar soo saari jirtay ayuu ku biiray koox yar oo aad u weyn oo la yiraahdo FC Metz Club. waxa uu muujiyay awoodiisa oo dhan, waxa uu orday garoonka wax fara badan, waxaana uu muujiyay dhammaan quwadda uu leeyahay iyo kartida uu leeyahay kubadda. ilmaha uu familkiisu ka daawaday TV-ga, taasina ay noqotay riyo rumowday Sadio Mane. waxa uu noqday mid ka soo muuqda qaybaha ugu sarreeya ee xulkiisa maadaama uu noqday ciyaartooy muhiim oo looga baahan yahay dalka. aakhirkiina waxa uu gaadhay inuu ku soo biiro kooxda imika jooga ee Liverpool oo ah naadigii riyada oo cid waliba ay aad u jeceshahay. cid waliba way ogtahay inuu Sadio Mane yahay ciyaartooy laacib u ciyaara kooxda Liverpool, laguna dhaato aad uga muhiim ah kooxdaas iyo kalaabkaas. balse maanta waxaan doonaynaa inaan si kale uga hadalno dhinaciisa islaamka iyo aragtida uu ka aaminsan yahay. Mane ilaa yaraantiisii waxa uu ahaa mid ku adag diintiisa islaamka, si kastoo uu soo maray waayo kan iyo nolol adag oo dhiiqa ahna wuxuu ahaa mid garabka ku sita diintiisa islaamka iyo kitaabkiisa quraanka, aaminsanna inuu yahay shayga ugu muhiimsan uu kaga gudbi karo caqabadaha adag, markastana aaminsan Ilaahay subxaanahu wa tacaala. waana arrinta u fududaysay arrimahaas oo dhan kana soo saartay waayihii ka kanaa ee uu ku jiray waqtigaas. waxaa lagu arkayay Sadio Mane safafka hore ee masaajidda, ilmaha garoonka dhexdiisa lagu arkayay isagoo ku caabudiyay Ilaahay xusayana oo kor u qaadaya weynayntiisa iyo qiimaha uu leeyahay. wiilkii yaraa ee shalay loo waayay kaba uu kubadda ku ciyaaro maanta wuxuu qaadanayaa $293 Mareykanka ah wiigii oo keliya, taasoo celcel ahaan lagu qiyaasi karo $15 milyan per year inuu qaadanayo sanadkiiba. waxa uu sameeyay $300,000 inuu u diro familkii iyo ciddii uu ka soo jeeday iyo tuuladiisii Bambali si loogu sameeyo isbitaal halkaa iyo waxyaalaha ay ku noolaadaan oo aad u qurux badan, iyo sidoo kale shay asaasi oo u arka muhiim sida iskuul iyo meelaha ay wax ku bartaan iyo goobo waxbarasho ay u baahan yihiin daayarta iyo dadka ka soo baxaya waddanka Senegal iyo tuuladiisii Bambali. dad badan ayaa bilaabay inay buunbuuniyaan kadib markay kamaradu qabatay Sadio Mane oo wata iPhone 11 muraayadiisu ay jaban tahay. maxaad filaysaa inuu ugu jawaabay waqtigaas? lacagta ma sameeyo anigu ee waan shaqaystaa. waxaa macquul ah haddii aad dib u eegto telefoonka aad sidato hadda inaan shaashadiisu waxba qabin, telefoon kastoo aad lahayd oo shaashadiisa nabar yari kaa gaadhin ama aad beddeshay ama aad iibisay. taasna waa waxyaalaha ay ku kala duwan yihiin dadku. Sadio Mane si kastoo hantidiisu badan tahay maaha qof ku ciyaara oo burburiya. Sadio Mane maaha qof isla weyn, waxaanu boqday marar badan tuuladiisii Bambali iyo halkii uu ku soo koray yaraantiisii. weliba wuxuu kubad shalabaada kula dheelay garoomadii uu ku ciyaari jiray waqtigii uu yaraa ee 10 jirka ahaa, daayar kale oo ka soo baxaysa dalka iyo qaar ka soo koraya tuuladiisa Bambali. markii uu ka soo degay caasimadda dalka Senegal ee Dakar, waxa uu bilaabay inuu soo lugeeyo ilaa intii u dhaxaysay garoonka ilaa xaafadii ay ku jiri jireen yaraantiisii, taasoo uu xasuusiyo jacaylka raadinayo. waxa sidoo kale uu booqday masaajidkii yaraantiisii uu ku tukan jiray, kaasoo uu nadiifin jiray kana shaqayn jiray isagii saaxiibkiisii. waxaana tusaale ballaaran u noqday dad badan oo hadda aad ugu dhagan lacagta oo aad u qiimeeya wax weyn ay la tahay oo marka jeebkooda ay wax soo galaan u arka wax weyn in ay helaan, dhammaanna ka fogaada dadkii ay wax u ahaayeen tuuladii iyo noloshii ay ku soo koreenna dafiro oo aad uga fogaada in lagu sheego. markii uu ku laabtay tuuladiisii Bambali waxa uu Sadio Mane sameeyay inuu dhiirigeliyo dadkii beeraleyda ahaa ee tuuladiisii Bambali, waxaanu siiyay lacag badan si ay ugu buuxsadaan siidharkii iyo waxyaalihii uga baahnaayeen si ay ugala soo baxaan dhulkooda oo ay u aaminaan. sidoo kale wuxuu hanti fara badan siiyay saaxiibkiisii masaajidka kala shaqayn jiray oo ilmaha hadda sidii u joogay eeriyadii, waxaanu dhisay guryo fara badan. dad badan ayaa Sadio Mane ku eedeeyay inaanu lahayn baabuur aad u fara badan, 2 diyaaradood iyo sidoo kale baabuurta Ferrari ee aadka u qaaliga ah, saacado waaweyn iyo waxyaalo la mid ah. maxaad filaysaa Sadio Mane inuu ugu jawaabay dadkaas? anigu hal qof ayaan ahay ma ihi 2 qof, kaliya waxaan u baahanahay hal gaadhi inaan ka haysto. mana garanayo sabab aan ku haysanayo 2 gaadhi, maxaa yeelay kaliya hal gaadhi ayaan fuuli karaa ee ma fuuli kara 2 gaadhi. waana jawaab la mid ah tii uu markii hore bixiyay oo kale ee ahayd anigu lacagta waan shaqaystaa ee ma sameeyo. ma isticmaalo khamriga iyo waxyaalaha draagiska ah. xilli kasta oo fasax helana waxa uu ku soo qaataa tuuladiisii iyo magaaladiisii, iyo mar uu joogo eriyada uu joogo aanu ka tegin magaalada uu ku nool yahay hadda. Sadio Mane hadda waa ciyaartooy qiimo kale kooxda Liverpool ahna furaha iyo kiiga ay isticmaalaan si ay u guuleystaan. muxuu ahaa pointkii kugu cajiibsanaa intii aad daawanaysay muuqaalkeena maanta oo aad ka xusi karto, aad ka taaban karto ama ku cajab geliyey amaba kaa yaabiyey? fadlan
daawada la garee muuqaalka si uu helo daawasho aad u badan kuna soo bir channelkeena Baaldahab TV oo barnaamijyo badan oo xiiso leh inaan kuu soo gelin doono hadda iyo haddanba insha Allah taala